shirkan ayaa waxaa looga hadlayay muhiimadda ay leedahay ganacsiga waxaana lagu soo bandhigay fikrado muhiim u ah horumarinta ganacsiga Afrika iyo Malaysia waxaana xubnaha soo qaban qaabiyay shirkan qayb weyn ka ahaa safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia oo safiir ka yahay Ambassador Abuukar Cabdi Cusmaan Mardaadi sidoo kale waxaa ka soo qayb galay shirkan wafdi gaaray ilaa 20 xubnood oo ka yimid Soomaaliya oo uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee dawladda Soomaaliya iyadoo dhanka kale shirkado ka yimid Soomaaliya ganacsato Soomaaliyeed oo xaruntoodu tahay dalka Malaysia ay ka soo qayb galeen shirkan ujeedada shirkan ay ahaa sidii dawladda Malaysia ee wadamada Afrika ay u yeelan lahaayeen xiriir ganacsi oo horumarsan waxaana inta uu shirka socday hoosta laga xariiqay in labada bilood ee soo socota la dejiyo istiraatiijiyadda horumarinta ganacsiga ee 5 sano ee soo socota waxaana Soomaaliya ay shirkani ka ciyaartay door wanaagsan Ambassador Abuukar Cabdi Cusmaan Mardaadi oo ah safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlayay shirkan in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay xoojiso xiriirka ganacsi ee la leedahay Malaysia shirkan waa shir runtii qaban qaabadeed koowaad annaka iska lahayn talooyin ayaan u jeedinay dawladda Malaysia wasiirka arrimaha maartay ganacsiga iyo warshadaha dawladda Malaysia si aday maartay xiriirkii maartay xagga ganacsiga dawladaha Afrika iyo maartay iyo dawladda Malaysia loo hormariyo arrintaas runtii talooyinkeedii annaka iska lahayn wali gaar ahaan Soomaali safiir annaka ahaa shirka ana joogay talooyinkaas soo jeedinay taas keentay in lagu marti qaado shirkadaha ka socda dawladda Afrika oo dhan iyo gaar ahaan dhinaceena Soomaaliyana annakana maartay gaar ahaan waxaan u fidinay martiqaadkaas in shirkado badan oo Soomaaliya ka soo qayb galaan waa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya dad gaar ah ganacsato isku jiraan hay'adaha dawladda iyo ganacsatada gaar ah inay ka qayb galaan shirkan maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno wafdi kamid ah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo shirkadaha ka shaqeeya xoolaha iyo wax soo saarka xoolaha sida shirkadda hilibka ee Summit iyo maxjarka Jazeera ee xoolaha runtii Soomaaliya markii ugu horeysay waaye xiriir noocan oo kale ah ila sameysay dawladda Malaysia runtii aad ayaan ugu faraxsanahay aniga waxaan ka socdaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxaana ila socdaa tiimkayga ka socda shirkadaha xoolaha iyo wax soo saarka xoolaha ka shaqeeya runtii waxaa la kulanay shirkado aad u daneynayo arrimaha xoolaha Soomaaliya iyo wax soo saarka xoolaha Soomaaliya sida hilibka caanaha iyo wixii la mid ah runtii khibrado badanna waa ka faa'iideysanay waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya ka qayb gasho shir ganacsi oo noocan oo kala ah waxayna Soomaaliya shirkani kaga dhigan tahay inay ku soo laabatay masraxa ganacsi ee caalamka Axmed Abuukar Ashari telefishinka caalamiga Somali Cable Kuala Lumpur Malaysia